bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal ku soo dhawaada war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray oo idinkaga imaanaya stuudiyaha Kalson TV ee magaalada Muqdisho. daawadayaal qodobadaynu wararka ku haynana waxaa kamid ah maamulka Puntland oo sheegay inay wada shaqayntii kala laabteen dowladda federaalka Soomaaliya. qaar kamid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo aragtiyo kala duwan ka bixiyay mowqifka maamul goboleedka Puntland oo sheegay inay wada shaqayntii kala laabteen dowladda federaalka Soomaaliya. Somaliland oo war ka soo saartay dastuurkii shalay lagu ansixiyay magaalada Muqdisho. madaxweynaha maamulka Tigray oo sheegay xubno ka tirsan sanadka Mareykanka in si buuxda loo fuliyo heshiiskii Pretoria. kormeerayaal ka tirsan qaramada midoobay oo ku dhaawacmay duqeyn ka dhacday koonfurta dalka Lubnaan. daawadayaal qodobadaas iyo qodobo kale ayaa ku daawan doontaan warka Kalson TV hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qadar adeega bulshada.